كوكستا أحد كستا كوحن باريا لفظ ظاهر كيسة ونصوص متشابهات أحد كستا ظاهر كلفظ كوحن باريا وآمن إنه مرك إلهي لبا إندود ليها أما لبا قعمود أما وجه أما دنع أما جوارح حبنا أوليها هي أعضاء وعير ابن تيمية وهدنا سي آمسا وآمسا ذات إلهي إني منتقلتها يقرقريسو فهم يلعنونه مسلمين طوال لعنة غفقس لعنة الله عليك إليهم غفق وحس أمس إنه إلهي ماركتي وياي wax maaragtay weyn oo jismi weyn oo maaragtay culays iyo tiqal oo ku tilmaamay sidii kuwa horeba aan u cadeeyaan hadaladiisa ka cadeeyay waxaan ka sugayaa Sheekh Nuur Al Jaamac inaad ka soo jawaabtoodan aamusin xaqa hadaad ka aamuso wuxuu qof noqonayaa shaydaan akhrasa hadaan anigu been loo ahay way cadaanaysaa haarin hadaa adigu been loo taana way soo baxaysaa laba muhaadara ka horeysay iftiraha iyo beenta aad sheegtay waan soo sheegay waxaan soo sheegay culimada aad tiri juluus haday qabeen bal hal kalima keen waan keenay man aad ka soo jawaab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغيبتي سدحات جوابتي كسعتي نور علي جامع أرنتانو ماها محاضرة ماها موعده ومناظرة وحق إسلافيرين وايه وحان كسو قدبني لبا قيبوت بداية أرنتو سيدي كبلاواتنا أولا هرأي وصوحت لي أرنتو waxay ku bilaabatay mawlidka oo masjidkii Abu Hurayra ay wadaad ka hadleen ay dhaheen ihtifaalka mawlidku ma banaana kitaabka mawlidkana shirkiyada ayaa ku yaala taasoo aan ballan qaaday xarfan bi xarfin inaan hadaladoodii ka jawaabo dhowr muhaadarana waan ka soo jeediyay anoo ka codsaday in ay soo jawaabaan oo hadalkii anigu aan ku hadlo wixii qalad ka ah hadayba jiraan inay maaragtay ka soo hadlaan wixii aan ku saxaahana ay maaragtay ayidaan marka taamaayna dhicin bedelkeed waxa dhacday in laga soo hadlay mas'ala istiwaaha iyo culuga ku saabsan oo hadal hore oo munaadara hore ah qayb laga soo jaray la soo dhigay oo aad moodo in arrintii jawaab looga dhigayo marka xaqii mawlidka ka tagay oo xaqii istiwaaha iyo aan aaday iyo culugu aan aadana waxaan ka soo hadlay hal muhaadara ah muhaadaraas waa uu ka soo jawaabay Sheekh Nuur Cali Jaamac qayb ka mid ah uu ka hadlay anigana waa anigu mahad celiyay inuu ka soo jawaab celiyay waxaanan maaragtay ku booriyay inuu san halka uga harin ee aan wada talantaali u wadno oo aan u soconno jawaabtiisi marka waxay noqotay in uu qiray istawaha iyo culuga kutubada anigu aan ku sheegay inay kayfiyadeynayaan oo ilaahay waxaan la aqwahay ku tilmaamayaan oo ilaahay juluus ay ku tilmaamayaan oo ilaahay ay ku tilmaamayaan inuu alla maxmuula yahay la xambaarayo oo la sido oo barin cagaaran maaragtay lagu yaala gobol dahab ay u taala kursi dahab lagu sido arayadii noocaas ah oo aan sheego horay ugu dafiray oo qiray inay jiraan kitaabadii aan ka sheegay inay ku yaalina oo qiray laakiin wuxuu yiri waa akhbaaraad iyo ahadiis dhaciifada mana daliishanayaan culimadaas oo ma ay aaminsanayn ilaahayna ma kayfiyadeeyaan sifaadkooda arinta markaan ku laabtay waxaan keenay inay aaminsanaayeen inay ilaahay juluus ku tilmaamaan istaag iyo fadhi iyo dhaqdhaqaaq iyo xad iyo makaan iyo istiqraar intaasoo dhan inuu Uthman bin Saciid ad-Daarimi kitaabkiisa Naqdu Daarimi loo yaqaan oo ku tilmaamay ayaan sheegay asagoo Nuur Cali Jaamacna uu yiri adiftaax waxa looga fadhiyaa hal kalaama oo wadaadadaas leeyihiin oo ilaahay juluus iyo fadhi ay ku tilmaamayaan ama ilaahay istawihiisa iyo sarreyntiisa ay kayfiyadeynayaan inuu keeno arrinta markaan keenay waxay ahayd oo aan muujiyay meeshay ku taalo kitaabkii kor u qaaday waxay ahayd marka in halka maaragtay xaqii maaragtay uu ku cadaaday oo arrintaasna uu qiray oo anuguna aan muftari aanan ahayn ee aan xaq sheegayay layga hagagayay in uu maaragtay arrinta qiray ayay ahayd
laakiin ma aynan noqon nasiib darra ma aynan noqon halkii ayuu ku aamusay mar kale waxaan leeyahay sheekh nuur oo aamusin xaqu wuxuu ku muuqanayaa in laysu jawaabo way caddaatay in kutubadii aad igu inkiraysood lahayd ma dhigayaan ilaahay juluus ma ku tilmaamayaan waad qaratay inay ku yaalliin waxaan haddana caddeeyey in ay wadaadadaasi ilaahay kayfiyad u yeeleen istaag iyo fadhi intaba ay ku tilmaameen waxaa marka haddana aan ka hadlay iftiraha aniga aad ii nisbaysay inuu adigu aad ku sifaysan tahay hal mawduuc ayaan uga hadlay 18 daqiiqo ayay soconaysa iyana kama aada soo jawaabin marka horta waxaan ku xasuusinayaa waxa noo qabsoomay oo aan soo marnay oo noo hirgelay oo munaadaradan faa'iidaha oo laga helay waxa adiga lagaaga fadhiyo laga sugaayay oo aad ka aamustay ama haddaad hadashay aad aga martay ayaan kuu tilmaamaya si xaq u caddaado kow waxa aad jawaab ku tilmaantay muxaadaradii koowaad ee aad soo hadashay ayaa isla ayadii inta lagu soo celiyaa aniga muuqaalkayga iyo codkayga la soo dhex geliyey markaasaa waxaa lagu tilmaamay jawaab labaad inay tahay taasi horta waa qalad ogow in isla ayadii inta la soo celiyo la yidhaha waa jawaab labaad waa waxyaalaha anigu aan maaragtay khiyaanada iyo qaladaadka aan mar walba aan tilmaamayey oo aan sheegayay mid ka mida waay talabaad oo ay ayana aad samaysay waxay ahayd meeshii ahayd walow shaa lastaqarra calaa dahri bacuudatin inaad ku tilmaantay inaan anigu u fahmay inaan leeyahay cuthmaan binu saciid daarimi iyo ibnu taymiya ilaahay waxay ku tilmaamayaan inuu ilaahay kaneeca korkii u saaran yahay mana ahayn hadalku cuthmaan binu saciid daarimi waxaan ka sheegay iyo ibnu taymiya waxa weeye in ilaahay carshiga uu kor saaran yahay carshiga uu sido oo carshiga lagu xambaarayo oo malaa'igtu ay ilaahay iyo carshigaba isku sidaan hadalkaas ayaa cuthmaan binu saciid daarimi naqdiga ku sheegay ibnu taymiyana wuxuu ku sheegay bayaanu talbiis aljahmiya hadalkaas ma aada ka jawaabin ibnu taymiya wuxuu sheegay ilaahay inuu alle maxmuul oo la xambaarsan yahay uu yahay carshiga lagu sido malaa'igtu ay sido kitaabkiisaas uu ku sheegay bayaanu talbiis aljahmiya la yiraahdo cuthmaan binu saciid daarimina sidaas oo kale uu ku sheegay labadooduba waxay sheegeen iska dhaaf carshigu waa weyn yahay kaneeco wax yar ah aaba qaadi karta haddii laakiin ilaahay uu doono marka anuguna sidii ay meesha ku tilla ayaan u sheegay kaneeca hadda sida ma dhihin laakiin waxaan idhi waxay yidhaahdeen kaneecaaba celi karta haddii ilaahay uu doono taasna waxay tahay waa arrin qalad ah mashiicada iyo iraadada iyo qudrada ilaahay kuma tacalluqdo ilaahay iyo sifaadkiisa waa mas'alo kale oo jahli ah oo nimankiina salafiyada la baxay idin haysata ilaahay awoodiisa iyo iraadada alle waxay ku tacalluqdaa waa makhluuqaadka ilaahay iraadadiisa iyo ilaahay awoodiisu kuma tacalluqdo ilaahay daatadiisa iyo sifaadka alle kuma tacalluqdo taasna waxaa arrintaas ay naxasuusinaysaa ninka la yidhaha ahwaazi oo imaamkii ibn casaakir uu ku radiyey kitaabkii maaragtay ahaa uu uga hadlay tabyiinu kadib almuftari iyo kitaabkiisa kale ee taariikhda dimishqa uu uga hadlay ibn casaakir labadaba uu ku soo warqaatay hadalkiisa ayuu wuxuu sheegay xaafidku keligiina ma aha dahabi ayaa kutubadiisa dhowr ka mida ku sheegay siyar aclaami nubala iyo taariikhul islaam iyo kuwo kaleba uu ku sheegay ninka la yiraahdo hawaazi kitaab ayuu leeyahay la yiraahdo albayaan fi sharh uqud ahli al-iiman kitaabkaas ahadiis baadil ayuu ku jamciyay ahadiis munkaraada oo mawduucaada ayuu ku jamciyay waxa ahadiista kamid aha wuxuu hadiis ma aha waa war mawduuc la dajiyay wuxuu yiri ninka hawaazi la yiraahdo oo ashaacirada markaa asagu naqdinaya radinayay ayaa wuxuu leeyahay an Allah ta'ala yakhluqu nafsahu ayuu xadiis ku sheegaya wuxuu leeyahay ilaahay baa nafsadiisa abuuray waa xadiis baadil ah wuxuu leeyahay إن الله تعالى لما أراد أن يخلق لنفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت ثم خلق نفسه من ذلك العرق إلهي مركو دوني إنه نفسديس أبوره بلو في رسالة الكاباد المديسة إلهي مركو دوني نفسديس إنه أبوره خلق الخيل وهو أبوري فرس وآوه الدم بتشوقيك وحل أبوره يا أوامحي وهذا المتناقض أسبريني مركز وحير فأجراها حتى عرقت ثم خلق نفسه انتو اريي
ayay markaas dhididay faraskii dhididay markaasuu nafsadiisa ka abuuray min dalika alcaraq hadalkaa waa hadal baadil ah culimmada dhammaan muxadisiinta in badan oo ka mid ah xataa ibnu xajar casqalaani way soo qaataan oo ninkaa hadalkiisa lisaanulmiisaan way soo qaataan oo axaadiis mawduucaad oo munkaraada inuu soo qaatay waana nin ku taagnaa culimmadii ashaacirada oo imaam abilxasan alashcari aad iyo aad u naqdinayay oo asaga iyo kuwa lamidka uuba kitaabka tabyiin kadib almuftar ibn casaakir uu ka alifay marka ninkaasi marka wuxuu yidhi markaas ka gadaal ayuu nafsadiisa ka abuuray meesha marka aan u jeedaa waxa waaye wuxuu u fahmay ninkaasi awoodda iyo qudrada ilaahay inay ilaahay ku tacalluqayso iyo daatadiisa iyo sifaadkiisa idinkuna dhinacii sifaadka idinka soo gashay oo ilaahay hadduu doono kanaaca fuulaya hadduu doono saas siyaraynaya hadduu doono isweynaynaya waa tan awal hore usoo marnay meeshaas marka hadallada iftarada ah oo la iska sheego waxaa fiican inaan la kala harin oo mas'ale aan isula soconno meeshaas waxaan nuqdo idin dareensiinayaa ibnu taymiya hadal iftiraa oo ibnu fawrig uu ka sheegay ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaha daru tacaarud alcaqli waalnaqli wuxuu ku sheegayaa juska saddexaad safxada 19 iyo juska shanaad safxada 236 ayuu wuxuu leeyahay walaakin haaulaa yuqarinuuna bilaxaadiisi saxiixati أحاديث كثيرة موضوعة ويقولون بتأويل الجميع وحولي أخوان أشاعرة وحي حريرينيان أحاديث صحيحة أي وحي كحريرينيان أو دبرديان أحاديث فربضان وموضوعات مركاسي دمان تود ولا تأويلينيان هذا الكاس أيولي هي مركاسو حسيو هذا الكسي وتحولي هي وأبو فورك في كتاب مشكل الحديث حتى إنهم يتأولون حديث عرق الخيل وأمثاله من الموضوعات انتو رق دورة الشيغي أو كمديها بشر المريسي أيو حوليهي رقاسي أبو فورك ابن فورك وحي كتاب كيس مشكل الحديث وحو كنت تأويلنا يا حديث كي عرق الخيل معناه فرس كاس ديد كيسة ولا نكاس ليهي أهوازي وليهي وها إلهي بان نفسديسا ka abuuray ayuu wuxuu leeyahay xadiiskaas uu ta'wiiliyay Abu Furig oo ku ta'wiilinaya kitaabkiisa mushkil alhadiis leeyahay marka waa arin oo uu ku iftiroonayo imaamka ibn Taymiya imaamkii weynaa ibn Furig ayuu ku iftiroonaya waana kan hadalkiisi ibn Furig kitaabkiisa mushkil alhadiis wa bayaanihi hadalkiisi cibaaradiisina waa tan balnala dhageysta bal si aad ogaataan ibn Taymiya been sheegay مسه ابن فورق أيها بين شيء وأنا نوعه الله مركان مسائش عن سو خلاف سنة هاي اعتماده وهذا أركيسه لجسوا بلا بكودي وينه إيه لجسوا جاركو هذا عن سينه أيوه هذا الله افتراء أدي أد وضوء قيحن كو هذا ليه هدي أي سن هرنا هل حبان الدول استاجنية ما هو حمارتي قفك اسكو كلسون وحال جربا إنه سن هرين مسائش مولد كهكارننا ندين هذا كور wax alla waxa mawlidka shirkiyadood ka sheegaysaan maraajicdi muslimiinta oo dhan ka keenay inaad shirki aqoonin waxa shirki la yiraahdo ha harinina socdo saddex nin baad ahaydeen Axmed Yare iyo Axmed Imaam iyo Nuur Ali Jaamac saddexdiina waxaan idin ballan qaaday wax alla waxa mawlidka ka sheegaysaan maraajicda muslimiinta oo dhan inaad ka tusayo hadallada aad sheegaysaan wixii iftiraya been ku jira inaan hal xabo dul istaagin laakiin nasiib wanaag ma aysan nasiib darra ma aysan noqonin inaad arintii hore u wadaan وكان هدنا لبا محاضرة أنا كهلان تيسد حد هذا وضعها وذات شو عن نور على الجامعة أنه وكهري ما هرن حقد أجانيسا ومدنا وانا قف أي سنة ثانية أديها حقنا ما أنه وحن رادين يا ما أنا أتكاد رادين معي إن كح أنا أن كمدها أتكادنا رادين معي لكن وحن دوني إن حقه أتكاده وحقه غالب نقضه وحقه موضوع أو ظاهره وكان ابن فوري كتاب كيس مشكل الحديث وبيانه صفحة 7 بقول كنتم وحوليها واعلم أن هذا الحديث ونحوه من الأخبار المتناقضة التي لا يجوز الاشتغال بها وبتأويلها لظهور فسادها ووضوح الخلل في أمرها وإجماع أهل النقل في أنها موضوعة لا أصل لها وعذر من فورك كتاب كيسا مشكل الحديث وحكولها صفحة 7 بقول كنتم أقوبوا لي مخاطبوا حديث كان وكان هذا آخريني إيه واحد لمتك هاي أخبار أحاديث تها سبرينيس بلو فيرس سبريني إلى هاي مرخو دانو إنه مارت نفسدي سأبورو فرسوا أبورو بلو فيرس إنه نفسدي سأبورو ده موجود ما هني هذا
إرادة وليه هسون موجود لهين هذانا فرسوا أبوريا وهذا الإسبريني وددوا حاجرة حديث كأنه سبش يجاني لكن مغفلين أردنك جانب كعقل أو إبركي هاي مركز أساسا إنك أنت حديث لو سواء بين أبورة زنادقة يا أبورتي بحجلسي روايات يا حديث وسكوت مركز أصلا سيدي حديث سوون أي ورينيا مركز وحول الحديث كان يكون ولا متك أخبار إسبريني سا ما بنانا أيولي ابن فورق إلا اسكم مشغوليه إيه إلا تأويليه إلا اسكم مشغوليه إيه إلا تأويليه تفسير له هذه ما بنانا وليه محل عاي فساد كودا موقنية خلل ككجرة أيا مارة عط أو رنتو ذا حد كجرة توي موقتا إيه وإجماع أهل النقل في أنها موضوعة لا أصل لها ذاتك أهل النقل أنا وحي اسكو وافقين إنه موضوعيهن أو سنة لهين بل في كتاب كمشكل الحديث ونادري ابن تيمية ساسا كتال أو ليه ابن فورق أيا حديث كان تأويلنا أو تفسير راديني معناه تأويلته تفسير رادينته وهي كدم بيسائل حديث كأت سقطي مركها الكاسنا وافتراء أو بين أبو رضا أو إمام أئمة كمدة أو كوكعي ابن تيمية ودكسونتين حلقي أو جوجي لما علماء أشاعرة أي أمارتي مدح لقلي أو أمارتي نقديي أو حتى مرتدين إيه الزنادقة إيه هذا كوران كهذا إني دين تودي بدلين إني ردوبين إني زنادقيهين أيضا مناظرة لوجوية ليه مسائل عن كوا هذا لنا لليه أيوه حقوق الماما يعني مرتدينهين أي زنادقيهين وحن دين شيء يا هذا الله النوع هالكلمة أو مارتي إنك اللي يراه عثمان بن سعيد الدارمي أو كتاب كيس اللي يراه الرد الجهمية أو كشيء الرد على الجهمية أو كشيء وعليه صفحة الله باب قول ثمانية الله وحدها يوا دارمي فأي فرق بين الجهمية وبينهم حتى نجبنا عن قتلهم وإكفارهم وح فرق يقول حيوا محيولية وهذا علماء السيستان وهذا مسألة أنسكوها يسنوا كله مسألة استواها أنسكوها يسنوا كله أيوه حوليه فرق يقول حيا أيها الجهمية ومحيوليه وأن مركز كعبسنه إن دلنه أن قاليسينه وضد قالها ولا ذا كان إن دلنا وأن قالاتين لأن كبغنا بماها مركب فيري وتكفير رسمي سدا سامارته وحد كنت المام يسان علماء أشاعرة إني جهميين هذا جهمية وحتى المام يسان إني قاليين مركب حقيقة الذين كجا بحا وحنا هذا كهر مسألة أن تنكوا هذا لأن عاد هذين سدح بقول السنة وح على وحي كدم بي بالكلية بقى نجوا علماء الساق هذا مين ما نهربنه حتى وحن هاي هذا ذات كانوا على الجامعة فتح الباري أصورنا هاي وغلط كتاب كاس غلط ويمرد لي شناي وكتاب غلط مركب أحاديث كتب هذه شرح هذا غلط يهين أو مراجع تفاسير غلط يهين أو وحي سدح بقول السنة ما يكدم بي غلط يهين ومشكلة إنه قتسل إذا الله هذا أنت يا ريت سلف كهيد أو عن كتب هذا إسلهيني أنت عن سلاء قالين عقيدة الضحاوي وكلي أي كمدهين ابن جرير وطبر أي كمدهين مرن يضاد يوحى عن مارة هذا آيات ككنتين مركتاسي وسداس وحواي وحلي كويستي أو عاد إن تكجوابتها ولي أن كاغا فديا وحي تاي كو إن تري إن إلهي وحى معناها إنه يري عثمان بن سعيد الدارمي ابن تيمية إن يرادين عرشه إلهي ساريه عرشها سدا عرشنا يوم المعركة إلهينا وحى اسكو سدا ملائكة حملة والحنبارسية إن تري إن إلهي كت المانتين ثقل أو أي معركة عثمان بن سعيد الدارمي ابن تيمية ثقل كت المامين هذا عثمان بن سعيد الدارمي أو ثقل كت المامية أو ديرات كأوحى كمدة هذا كان أو كير جزء كلا صفحة هذا سديد بقول يكوب ولو فيرسو وحوليه عرشه ما لم يكن على العرش بزعمك إلا آلاه ونعماؤه وأمره وعرف فإن لم يكن على العرش بزعمك إلا آلاه ونعماؤه وأمره هدان عرشه سيدة شيغانا يسعوصان أهين دوشيس إلا إلهي نعموين كيسا إي أمر كيسا محويها عرشه يتأطب من الآلاء والنعماء عرشه محو الله شنقريا من نعموينك أي الله شنقريا لكأنها عندك أعكام الحجارة والصخور والحديد أكتاد واحد مدابو له النعمضو يا آلاد إني تاي دقحان وأوين يا ماركت يا براء يا دقحان إني تاي أو مركم ها عرشك عسلية عرشه محو الله نواقا هذا تري عرشك وحا كسر يا إلهي صفات كيسا أي أوصر يا وسيد النعمض يا آلاد هذا تري
maxaa carshiga cuslaynaya carshiga ma dhagxaana saaran uu leeyahay baraa saaran oo fayataatadu minha alcarshu marka carshiga uu la shanqaro thiqalan culays daraadeed inama alaalaa'u dabaa'icu aw sanaa'icun nicmooyinku waa dabaa'ic ama waa sancooyin laysa laha thiqalun culays ma laha walaa ajsaamu yataatadu minha alcarshu jismiyaalna maaha carshigu uu la shanqaro marka carshigu wuxuu la shanqaraa waa ilaahaye nicmo iyo maa waxa sidaa dhahaya waxa waaye waa Uthman bin Saciid ad-Daarimi marka waxa aan jawaabaha lagaaga rabay waa dadka ilaahay thiqalka ku tilmaamay Uthman bin Saciid ad-Daarimi waxaan keenay asagoo ilaahay istaag ku tilmaamaya oo ilaahay fadhi ku tilmaamay oo ilaahay xad ku tilmaamay waa ka kitaabkiisii ayaan ka keenay wali kama aad soo jawaabin marka taa waxay ka dhigan tahay munaadaradas inaad ku jabtay aan qiraalaadahay in maaragtay lagaaga guuleystay inaad qiraalaada ay halka ka dhigan tahay marka hadda waxaan ka hadlayaa ibnu taymiya inuu ilaahay isaguna juluus ku tilmaamay ilaahay inuu ajsaam macnaha jismi ilaahay inuu ku tilmaamayo oo macnihi jismiga ilaahay uu sugayo ayaan maaragtay halkaan ku tilmaamaya ayaan ku sheegaya ilaa tii hore waan ka soo hadlay man aad ka soo jawaabin tanna waan ku dhageysanayaa wixii aad ka tiraahdo marka ibn taymiya wuxuu leeyahay kitaabkiisa la yiraahdo ar-risalatu tadamuriya juska saddexaad safxada 50 ibn taymiya wuxuu leeyahay أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء مركز أصو هذا الكسي وتحوله فإثبات أحدهما ونفي الآخر التحكم وحا قعودك إيا السقنانشها اللغو مقعابه وحا الله نهيا وحا اللولي هاي استواه فرق إلهي أما مارة السقنانشها وحا استواه اللولي وكلا الله نهيا سيدا استواه وكلا أيا الله نهيا فإثبات أحدهما والنفي الآخر تحكم إن مثل السقه أو استويه السقه فدقين اللي أنفيه واسك حكم سوايه وأضع اسك حكم سوايه ده بلو فيرس مينا هين مركا هلكا ابن تيمية أو إلهي جلوس وسقي مركا أسقى إلهي جلوس يفرد وسقي وحوليه هاي فتاوي سجسك شنا صفحة شنبغ اللواتن يتضوى فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لفظ الجلوس والقعود في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي طالب وحديث عمر بن الخطاب وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد وعليه هي وحا آثارت كتمت أو نبي حقيس أي كتمت أو لفظ الجلوس كأه إيا قعود كأه أو إلهي حقي صلى نسبين سيدة حديث كجعفر إيا حديث عمر بن الخطاب لماذا هو بادل وأن سلقرني إن أحاديث أي آثارت وحق شيء إلهي جلوس كتل ماما إني بادليهن كلا وحان ربا ما دابتها النقطة عن سلقرني أو عن سلقرنا هدنا إن إلهي لكيفية ديو الله إيا صفات كيسا إني بادل تاي وحان ربا إن كدب جيو أئمة إيا كتبا أو أبتر سنيو إن أي كيفية إلهي أي كيفية يعني إلهي جلوس كتل ماما يعني إلهي علاش كتل ماما يعني إني كقران تاي واتنا متكمدة مركا sidaasu marka wuxuu u tilmaamayaa juska shanaad safxada 527 juluska ayuu ku tilmaamayaa meel kale oo fataawiisa juska 16aad ah safxada 437 wuxuu leeyahay wahada وغيره يدل على أن الصواب في رواية النفي وأنه ذكر عظمة العرش وأنه مع هذا العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر 4 أصابع wuxuu soo sheegay xadiis baadil ah oo aan maaragtay sugnayn oo baadilnimadiisa aan isla ogaanay oo isla qirnay oo sheegaya wa annahu la yajlisu alayhi fama yafdulu minhu qadra 4 asabi'a wa innahu la ya'idu ka adid ar-rahl al-jadid birakibi xadiiskaas oo ayuu soo qaadanaya isla safxadaas ku sheegaya ibn taymiya xadiiska markuu sheegay waa xadiis baadil ah xadiis jira maaha wax ilaahi julus ku tilmaamaya waa arin baadil ah markuu sheegay kadib wuxuu leeyahay ka iyo غيرkiiba waxay tusinaysaa sawaabku inuu yahay nafiga oo nafigaas muxuu yahay fama yafdulu macnaha ka faadil noqomaayo wa innahu la yajlisu alayhi fama yafdulu marka riwaaya kala jirta oo yafdulu waxa soo haraya ilaahay markuu wuxuu leeyahay arshiga ku fariistay ilaahay baan ka maga galnay kelmadda xikaayadeeda ilaahay nooma qabto noomana ciqaabo macnaha riwaayana waxay ku timid waxba kama soo harin markuu ku fariistay midna waxa ka soo hartay 4 farood
labada riwaayo marka wuxuu leeyahay mid nafiga ah ayaa sawaaba waan waxba ka soo harin marka sida sawaabka waxa weeye uu leeyahay ala anna sawaba fi riwaayati nafi riwaayada nafiga sheegaysa waxba soo ma harin leh ayaa sawaab ku yahay maxaa yeelay wa annahu dhakara cadamat al-arshi wuxuu sheegay arshiga weynankiisa wa annahu ma'a hada al-azamati arshigaas weynankiisa maciisa farrabb mustawin alayhi rabb marka waa ku ekaaday oo mar arshiga uu la ekaado ku ekaaday kullu dhamaantii la yafdulu minhu qadra 4 asaabi'a kama soo harin qadar afar farooda markaasuu ibn taymiya hadalka asagoo sii sugaya wuxuu leeyahay wa hada gaayatu ma yuqdaru bihi fi al-masahati arintaas afarta farooda waxa masaaxada lagu qadaro waxa yoolkeeda waayo markii waxa la qadarayo oo masaaxadooda la sheegayo oo min a'daa insaanka xibniis dhudhun iyo baac ayaa la sheegaa afar farood waa meesha ugu yar markaas kadib wuxuu sii leeyahay waa isla maaragtay safxaadkaas waa safxada xigta waa جزء الحيتمنات أفر بقول صدق يسدد فبين الرسول أنه لا يفضل من العرش شيء رسول كوه عديه أن العرش وحبك السهرين ولا هذا القدر اليسير حتى أفر فرض قدر كذا نسك السهرين الذي هو أيسر ما يقدر به أو وح الوح والقدر وح أو يرأه وهو 4 أصابع وأفر فرض وهذا معنى صحيح موافق للغة العرب وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة ومعنى صحيحة أو اللغة العرب توافقسن أو وحي كتابك السنة تستنى وافقسن وليه بلو فيرس هذا الكاسميوس هذا الأوقباء سنهين روايات الحكاية ذي أخبار ضعيفة هالوشيء ما يسأل من سنين إنه هذا الكجلوس كأو آمن سنة أو سجاي نواكا وينك إلهين أوقات جسم وين أو مركا أولي هاي هدي أفر فرات ولي هذا الكأفر فرات هدي اللي جربه عرشك كويناه شيء عرشه هو وينان أفر تفرات وبيعي هالليلة مركا هذا الكوابادل هذا الكائن الساس أو ابن تيمية أويري هذا أدو إنكريسو رجع بدنا ماذا معاصرين تا هذا الجوجا كمله وأدو مارتي رجع مراجع ذكوة كمله أي سيدا قري وحكمده ناصر بن حمد الفهد كتاب كليرا الإعلام بمخالفات الموافقات والاحتسام نكا كتاب أو قري علماء لما يد أيها وحلقوا محكمة دي هذا كهران هرو شيء توحيد كان الغيبين أيها لقوا محكمة دي مت كمله أو رجع هذا الجوجا معاصرين تا كمله أيها وحكم محكمة دي إمامك شادبي كتاب كيس موافقات اعتسام أيها وحكم صاري محكمة توحيد كي الغيبين مركا كتاب كاس حديث أفرتني يتضبط إلى أفرتني سجال أيها وحكم شيء ابن تيمية إنه جلوس كاس غبي هذا كانوا سوق هذا نيا ابن تيمية إنه جلوس غبي أيها سوق كل شيء ساسك عبد الرحمن براك إجاباتك أو على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث وكجوابي وهذا شامل هذا أنا كجر تجوسك كوات صفحة أفرتني يتضبط أصنع هذا كان أي سوق هذا نيا وشيء ابن تيمية وكشيء أو ما رأيت إني قبين أصلا هذا أخبارات كاس إني ضعيف هاي شيء أيوحولي ولكن أهل السنة لا ينكرون ذلك بل المبتدعة هم الذين ينكرونه أهل السنة ما ينكر يعني ولا إله الجلوس إلا نسبيه بل بدعاء إنكريس بل فيرس بل هل أرنت اللود بجدي بل فيري مركز وركا وحسوق هذا يا ابن تيمية مركز وحنا نجي هذا الشيء مرقاتيال أدينك إن كمدا إن يكون مرقات فرين هذا أدو هجاجيسو رجعني هجاجين إن يمارت أرنت غيران أي كل شيء جيا ننسى بحاجة كقدر يا رجل معاصرين تاه نكل إلى عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف أو حبينك هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة اللي يقان جامعة إمام محمد سعود كتاب كيس أو وبحية تغييرات ابن تيمية في بيان ما يشكل في الرسالة التدمرية تغييرات كابن تيمية والرسالة وحيالها إشكالات كالرسالة التدمرية اللي راكو جرا صفحة أفرتن يكو أساقنا سيدا سوكلا ابن تيمية وحوش يغيا إنه استواها يفرق ابن تيمية أكتس استقرارك إستغمتك أهايين إن استغمتك أهايين وابن تيمية وكل أول قبي مركا انتا صورنا وحي عدينيسا ابن تيمية إنان عيدنا آنكو افترونين ووحا أنو شيغيو أما علماء إيقاه الرئيسي شاكتاي أي وحسا حيين ساسو كالإمام كالليرا سبكي كتاب كيس الليرا سيف صقيل صفحة تضباطا إيا سديد مركو هذا الكي ابن القيم وردنا قبقي ابن القيم بيتك قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم ربانين مسألة عن مركو كهذا يوحوري قد أفردت بمصنف هو عندنا مسألة عن وحالو قونية لي كتاب لنا لقاء اللي فيه بيقول وأنا هكذا أكتنا ديال وحدا يا ابن القيم وتصنيف حبر عالم ربانين عالم أو رباني تصنيف تسوي
halkaas wuxuu leeyahay oo sheegayaa imaamka la yiraahdo imaam subki wuxuu sheegayaa kitaabkaas inuu yahay oo uu tilmaamayo ibn qayyim kitaabul arsh oo ibn taymiya uu leeyahay kitaabkaasna uu ahaa kitaab uu qarinayay kitaabkaasna waxa helay oo gacanta ku dhigay abu xiyaan al-undulus ayaa helay wuxuuna kitaabka warkiisa ku sheegayaa kitaabka tafsiirkiisa bahr al-muhiit loo yaqaan ayuu ku sheegayaa waxaana soo xeeladaysta kitaabkaas inuu waafaqsan yahay isaga dhiga oo ka soo qaaday ninka la yiraahdo maxamed bin abdul haq ayaa soo qaaday inuu waafaqsan yahay ayuu isaga kitaabkaas qof uu ku kalsoon yahay mooyaane ibn taymiya cid kale ma tusaynin marka xadiiskan hadda aan ka hadlanay qucuudka sheegaya iyo waxaasuna ku soo qaatay marka saa daraadeed ayaa kitaabkii sidaas inta looga soo qaataa lagu arkay laga bilaabo marka abu xiyaan al-undulus ibn taymiya uu lacnadi jiray awal asoo saaxiib la ahaa oo isjeclaayaan wixii marka laga bilaabay ibn taymiya uu lacnadi jiray halkaas maaragtay sidaas marka kitaabkii hadda makhduudkii bahrul muhiit way ku taala warkii madbuuciisina waa laga jaray oo madaabiic daabacaysa ka jartay waxyaalahaas kamida macnaha waxyaalaha kitaabada culimadu ay alifeen faraha lala galay oo maaragtay la dhibaateynay kamid tahay marka taas marka waa intaas tii hore maaragtay thiqalkii iyo arshiga xambaarsan iyo malaa'ikta sidee iyo waxaasna waan soo aqriyay waana ka soo hadlay hadda waxba gooniya dib ugu laabamay marka waxaan rabaa oo aan maaragtay idin sheegayaa ibn taymiya intaas markay tahay qaladaadkiisii waxa Soomaalidu tiraa gaalka dil gartiisana si maxaasin uu leeyahay hada la waafaqsan warkii culimadu ku hadleen uu leeyahay bal waxaad la arkaysaa fataawiisa waxaad ku arkaysaa hadal toosan iyo hadal qaldan inkastoo qaladku uu badnaa xiliyadiisii dambe marka hadallada marka toosnaa oo uu ku hadlay oo ibn taymiya toosnaa waxa kamid ah talbiis al-jahmiyya juski koowaad safxada 31 wuxuu ku leeyahay marka intaanan macnaha aanan taa u gudbin waxaan wax yar ku darayaa tajsiimka oo aan ahayn macnaha juluuskan kaliya aan ahayn talbiis al-jahmiyya juska koowaad safxada 31 wuxuu leeyahay قالوا إنه واحد منزه عن التركيب والتأليف ومع هذا فإنه ليس بصغير ولا حقير ومعلوم أن هذا الذي التزموه مما لا يقبله الحس والخيال وحي رادين بو إلهي وألا واحد وكلئة وأنا كان زهاية تركيب إن إلهي اللي يسكرسيه ومخلوق وشيء متراك اسكرسان واي مخلوق مركا في رضا وحكا صباحا هذا وشيء جسم اسكرسان واي مركا وحي رادين بو إلهي تركيب إيه تأليف وحلا صدوم إلهي وكان زهاية ومع هذا فإنه ليس بصغير ولا حقير حدنا معها مدير حقيرنا معها مركز ومعلوم أن هذا الذي التزموه وحلوه روح إلى لازم سدين ووحان حسي خيالك أيسن أقبل كريت مركز ما إيش اسمها كم مغضى ابن تيمية إنه إلهي كدقة يوم محسوس متخيل أو مارة لصورة ذين كره ولا توهمي كره وحي آن مارة حسي يتخيلك أيسن أقبل إنه aan maaragtay la aqbalayn saas oo ka dhigaya waa hadalkii ilhaadka mulxidiinta hadalkoodii waay hadalkaas marka ilaahay mutakhayal maaha maaragtay mahsuusna maaha aad maaragtay adiga xawaastaada aad ku dareemaysid marka taasi waxa waa ilaahay inuu jismi ka dhigayo talbiisul jahmiyya wuxuu ku leeyahay juska labaad ida kaana cadiiman hadii ilaahay yahay alla uu yahay mid weyn fala budda an yakuna munqasiman lagama maarmaan waayo inuu qaybsama oo maaragtay kala gogo'ayo دوبه وين يهي إلهي وعظيم صومه إلهي ووين لكن ما حيتاي وينك إلهي ما هو وين جسمه ومعنى أهان وشرف أهان وقدر أهان وأود أهان يا إلهي وينك يسوي وين جسم أما جسم أهما مركا وحول هدو مركا إلهي عظيم يهي ابن تيمية دهية وحلقة مارمان إنه غيب سمي وليس هذا من باب قياس الشاهد على الغيب من أهارين تاسي إن لو قياس قادنيو غائب كالشاهد لو قياس قادن إلهي هو غائب معناها مركي لغا فيري حواستنا إنان ku dareeno إلهي هو غائب marka الله غائب كهاي أنو أنان حواستنا ku dareemaynin inaan uga qiyaas qaadano waxa shaahidka ah noo muuqda ma aha wiri arintu markaan leeyahay cadiim haduu yahay waa qaybsamaya markaan leeyahay markaas wuxuu yiri bal hada binaa'un 'ala al-burhan al-qad'i arintaasi waa dhismo xujada qadciga lagu dhisay بل حجة قطعية وحي كتوسيسا جسم كستا إنو صنعيه شيء كستا متراكمة ولا اسكرسان أو قربب كان إيا وراقهان اللي اسكود جي إني صنعيهين صنع كستان وحي كتوسيسا صانع سميي إنو جرو
marka qadiyadii waa dabagediyay burhaanka caqliga wuxuu ku tusay ayaana tusinayo ee ma ahan inaan makhluuqi allah khaaliqa asay qiyaas qaadanay macna labadaas nuqdo waa wali asagoo tajsiimkiisa sii wad mararka uu quman yahay oo hadalka fiican oo ku hadlana waa kan majmuuca fataawigiisa juska labaad safxada 188 wuxuu yiri wa idha kana almuslimuna yukaffiruna man yaqulu anna as-samawati tuqilluhu aw tudilluhu lima fi dhalika min ihtiyajihi ila makhluqatihi فمن قال إنه في استواه على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله فإنه كافر لأن الله غني عن العالمين حي قيوم هو الغني المطلق وما سواه فقير إليه وحيري مجموع سعوكور هدي مسلمين تو أي قال يسينيان عدة دهيس السماوات كإلهي سده بلفيس سماوات كإلهي سده أول محان صارقنا عرش كإلهي سده أسوه سوير مركا هدنا